Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti waxaan wanaagsan daawada meel walba aad naga daawanayso. Kusoo dhawaad qaybtii 13aad ee sheekadii Saxardiid. qaybta 12aad ee sheekadii Saxardiid waxay inoo joogtay iyaga oo midba kan kale ugu sheekeynaya waxa uu la kulmay intay kala maqnaayeen. qaybta 13aad ee sheekadu waxay ku bilaabmaysaa ilaa ay meeshii ayaan la joogay mar alla markii labadii walaalaha ahaa isku soo dhawaadeen intay isku soo boodeen ayay xiiso kulul iyo gacalo aan la koobi karayn isku dhunkadeen midbana midka kale ku dul ooyey way isa soo wada raaceen oo markaa waxay yimaadeen meeshii Samaalo ku sugayay Saxardiid waana muuq aan marnaba la tilmaami karayn. markay saddexdii nin ee walaalaha kulmayn waxay galeen isweydaarsi erayo kalgacal iyo alla ku mahadin inta ay Saxardiid iyo saaxiibadii la wareersan baraarihii iyo farxadii kulankoodii lama filaanka ahaa ayaa dharaartii baadidii dhamaatay. marka sidaan filayno mawjadii amraneyd xilligeedii wuu tagay. sanad kadib goor ka horeysa inay dhulkoodii ku noqon karaan waxay noqotay waxaana suurtagal ahayn. sidaasina waxay ku dhalisay nimankii murugo iyo calaacal ay farta dhexda ugu qaniineen waqtiga habboon ee ka lumay. waxay ka fikireen hooyadood gabowga ahayd ee sugaysa soo noqodkii Saxardiid, hooyadoodii oo markaa ay ugu cabsi qabeen in markuu Saxardiid ku soo noqon waayo ay moodo in sidii saddexdii nin sooba noqon waayo markaana intuu qalbiga ka xumaado maroor dilaac la dhiman doonto. markay saddexdii walaalaha ciil la wada fororsadeen ee midna erey ka soo bixi waayey ayuu Saxardiid yidhi, ilaahay waxaan ka baryay inuu iyadana sii daryeelo annagoo nabad qabna nugu celiyo. marka waxbaha iscilkaan burinina ee ina keena aan ku dhaqaaqne halkan sidii aan ugu noolaan lahayn sanadkan. markiiba way iswada raaceen isaga iyo Ayaala iyo indhoolihii soo geli. cuuryaankii Samaalana halkii bay kaga tageen. markaasay duurkii ugaarsi u dhex qaadeen. waxay kolba bakeyle iyo sagaaro ka nexiyaanba ayay soo dileen deero weyn oo shilis ah. halkii bay ku soo noqdeen kadibna sameeyeen casho weyn oo wanaagsan. markay dhargeenna waxay ku kaceen aqal dhis. geedihii agtooda ayay kolba laamo ka soo gooyaan kana dhiseen waab fiican. maalintii dambena intay waxay dahab qaadi karaan urursadeen ayay soo ugaarsadeen 3 biciid oo waaweyn. markaasay maqaarkoodii ka samaysteen kiishash ay dahabka ku gurtaan iyo qaraabada ay laabta ku xirtaan. marka dambe ee badda ku noqonayaan waxay kale oo ay sameeyeen doon weyn oo afartooda ay ku noqon karaan. markay sidaa wixii tabaabush iyo diyaarin ah u dhammaysteen ayay kadib iska nasteen oo fiiriyeen waqtiga ay socdaal geli karaan. sanadkiibaa markaa sidiisii caadiga ahayd xilli ka daba wareegay. xagaagii baa dhammaaday oo deyrtii baa ku xigtay. markaasuu jiilaal soo galay. dabadeedna gu'ii la sugaayay ayaa soo dhacay. markay maalintii ay tirsanayeen iskentay ayay doontii badda agteeda dhigeen. Saxardiid iyo Ayaalana labadii kale ee lixaadka la'aa ayay tukubiyeen ilaa ay halkii doonta ay dhigeen. habeennimadii markii ay gaadhay ayay afartoodii nin labada dhegood iyo labadii indhood mare iskaga xiray. nin walbana kiish dahaba ayuu dhabarka ku xirtay, qarbadiina laabta ku xirtay. mawjadii kolkay meel fog soo xintay ayay kadib intay doontii baddii dhex dhigeen ee ay wada fuuleen ayay sugeen intay soo gaarayso. wax yar kadibna waaba iyadii oo lalaysa. kolkiiba xeeligii ayay labada dhinac martay. sii noqodkiina doontii ayay la sabaysay. waxay marna kor u tuurto marna hoos u celiso oo sidii kubadda ugu ciyaartaba habeenkii iyo dharaartii dambe oo dhan bay siday. casar gaaban marka ay gaartay ayay iyaga oo nabad qaba ku soo tuurtay dhagaxii weynaa ee afartoodii ay ka ambabaxayn. soo geli ayaa ugu horeeyay nin maradii indhaha iska fura. mar alla markuu iska furay ayuu farxad la qayliyey. intaas waxay noogu dhammaaday qaybtii 13aad ee sheekadii Saxardiid.